شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. cibaadadeena waa inaynu ka ilaalinaa markaynu hagaajinno kadib waxyaabaha duminaya. haddaad cibaado dhisto oo aad toosisood qurxiso cagaftii duminaysayna aad daba wado sidii nin waalan unbaad noqonaysaa foosta gun la dhaaminaya. waxaa laga ilaalinayaa xaaraanta sida aayaddu caddaysay. rasuulkaa tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qofku hadduu xaaraan cun yahay ducadiisa lama aqbalayo. waxaa kaloo tilmaamay inaan la aqbalaynin sadaqadiisa, camalkiisii u fasahaadaya. marka xaaraanta qofku waa inuu iska ilaaliyo, xalaal cun noqdaa, qof waric ahoo xalaal cuna waa inuu noqdaa. balwadda waa inaynu ka daynaa cibaadadeenna. balwaddu waa xaaraan, xaaraantii bay iyana soo gelaysa. marka haddaad jaadkii iyo sigaarkii iyo khamrigii iyo wixii nooca ahaa qofkii uu isticmaalayo oo la isku waafaqsan inay dee maanta xaaraan yihiin lidaatihi wa licaari, lafahaantiisa marka la eegayo waxa ku xeeran labadaba. waxyaabaha xaaraanta noqonaya waxna laftiisu xaaraan u yahay, waxna waxa ku xeeran. labada siyoodba balwaddaasi xaaraan bay weyn, lafahaantooda xaaraan bay weyna waa darooga. dee adiga akhriyi doona haddaad u baahan tahay daraasadaha laga sameeyey gaaliya islaam. waxa ku xeeranna xaaraan buu la noqday. qoyska dumaya, diinta dumaysa, dhaqaalaha dumaya, maamulka dumaya, waxaasoo dhan dadka sunoobaya. waxa ku xeeran kolka la eegana xaaraan buu la noqday. marka cibaadadii waxay u baahan tahay inaad ka dayso xaaraanta. bidcaday u baahan tahay. arrinka saddexaad ee cibaadada aafayn karaa waxa weeye bidcada. bidcadu waa qofka isku qanciya waxaan inuu iska wanaagsan yahay oo cibaadada aanu dhib ku lahayn. marka korkordhin iyo naaxnaaxin iyo iska wanaajisasho uu leeyahay kana wuu iska fiican yahay, kana wuu iska fiican yahay, waa diinuuna muxuu u dhimayaa. taasina cibaadaday duminaysa. adoo dadaalayaba waxbaba la hadhin naf iyo maal ayaa laga yaabaa in lagu cadaababa. rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddu. islaamka iyagu uu noo dhammaystiran yahay cibaadadiisi iyo caqiidadiisiya, qofka wax ku soo dara fahuwa raddun waa lagu celinaya. waxaaga in la celiyo waa inaad ka feejignaataayoo aad tidhaahdaa shaygu sow cibaado maaha. cibaado wuxuuna laga daydaa maqalkiisii iyo muuqaalkiisiiba rasuulkii ilaahay inoo soo diray sala allahu calayhi wasalam ee ilaahay uhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir. ilaahay ee aakhiro qofka rajaynaya inuu ilaahay aakhiro is hortaago waa abhin weyn weeye. nebi maxamed bay ku dayasho wanaagsani ugu sugantay. haddaad isaga weydaarato isagaad dhaliilaysa iyo sharcigaba. markaa maxaa ku dhibayaba aakhiro haddii lagu odhan lahaa waxaan xaggaad ka keentay, dee markaad tidhaahda nebigaan kaga dayda waad beri noqon. haddaad tidhaahda anigu ilo wanaagsanaadayna dee kaa wejiga lagaga dhufanaya wey. marka bidcada waa in laga ilaaliyaa. nebigu ma sameeyey mise ma samayn baa isweydiin leh. jahligaa laga ilaalinaya cibaadada. jahliga ilaahay jahli laguma caabudo. laba qoloo ilaahay eedeeyey nacdal dusha uga tuuray waa yuhuudda iyo nasaarada. qole ilaahay jahli bay ku caabudeen iyo bidco iyo wixii ay jeclaysteen waa kiristanka. qolada kalena cilmigoodii bay ku camal fali waayeen. waa innagaa ilaahay ka magan gelayna ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim. ilaahu dadkii aad u nicmaysay ee awliyada ilaahay, ilaahu jidkoodana mari. maxaynu ilaahay ka magan gelaynaa? hayri almaqduubi calayhim wala daaliin. kuwii loo cadhoodo kiristanka ah iyo kuwii kale la nacdalay ee yuhuudda ah, labadaa ilaahu jidkooda naga du. labadaba halka laga raacay waa caynkaas weeye. marka waxa jahliga la yidhaahdo foolxumo weyn buu leeyahay. waynu ogsoonnaho arrimaheenna adduunyada marka aynu horu marinayno maamulka, dhaqaalaha, dhinac walba waxaa loo raadiyaa qof aqoonna leh, khibradna leh, oo waxaan yaqaano ku tababaran, isla markaana ku soo shaqeeyey si camalkani aanu u naafanin ama u nuqsaamin. arrimihii adduunyada saasaynu ugu dadaalaa. qofna wasaarad iyo sharkad iyo shaksi uma shaqo tago isagoon cilmi lahayn, oon siifi lahayn, oon shahaado sidanin. waxaa la odhanayaa dee isqor ma aqbali karayna iyo iska socdo orod horta wixii lagu aqbali lahaa keen. damaanadna waa loo sii raacinayaa in ammaano uu leeyahay. bal ilaahay baynu is hortaagaynaa innagoon cilmina lahayn, sidii loo tukanayna garanayn. ilaahay baynu jahli ku caabudaynaa. qofku haddii la tilmaamana wuu doodayaa, jahli buu ku doodayaa. marka cibaadadeen waxay u baahan tahay arkaanu islaamka iyo kuwa kale aynu gudanaynaba qof walba ha isqancin oo ha iska dadaalinuna
inaad diinta barato oo cibaadadaasi waxay kaaga ansaxayso waa faral salaadii waxay ku ansaxayso waa faral waxay ku buraysaa inaad barataa waa faral sakada waxaan ku idhaahdaa haddii aad ku jirto dhaqaalaha inaad wax soo saarto ganacsiga iyo aadaabtiisa marka taasina waa laga maarmaa cibaadadii inay cilmi hesho afartaa arrimood marka cibaadadii laga ilaaliyo aqbalkeedaa dhowaanaya marka waxay ku soo ururaysaa laba shardi oo waaweyn baa waxa aynu sheegaynaa ay soo hoosgalayaanoo daacadnimo iyo diintood camalka waafajiso munaafiqnimada ka ilaali ismaqashiinta iyo istusnimada iyo caado wixii inay kaaga egaadaan marka daacadnimo waa inay jirtaa dadaalna waa inuu jiraa iyo diintooda waafajiso markaasaynu rajaynaynaa insha allahu inuu ilaahay aqbalkana ilaahay baynu sii baryaynaa weliba